wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo isagu gobolka Awdal u joogay kormeer shaqo si uu u xalliyo aqadii ka dhacday deegaanka Xariirada ee gobolka Salal halkaas oo ay laba beelood ku dagaalameen taasi ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu uu ka galay xal markii uu shalay tiro wasiirku arrinkaasi soo afjaray ayaa waxa maanta xabsiga dhexe ee magaalada Boorama laga soo sii daayay qaadintii iyagu xidhnaa eedaysanihii isagu falkaasi geystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo dardaaran u diray salaadinta laga soo daayay jeelka dhaxana waxa uu yiri xarig nabadeed bay xidhnaydeenoo waxaan ku baajinaynay bela kale meesha ka dhacda ayaan ku baajinaynay waayo ninka wax loo geysto haddaanan gacan ku dhiigli hor keenayn oonan lahayn war waa kankii wax ku geystay nabadda sida kaliya ku hoojin karaya waxa weeye ciddii wax geysatay inaan galo oo lagu galgasho marka waanu idin galnay waanu idinku galgalanay haddaanu xukuumaddii nahay nabad baana noo geysay oo Xariirad ilaahay baa mahadleeday dilkii ka dhacay dil dambe kama dhicin xalay baanan ka yimid habeenimo dambe ayaan ka yimid runtii xaggii Ciise laba beelood baa wax kala gaareen walaala ah intii ay xidhnaydeen xaajadii cid uma dhaqaaqin sideedanka habeenaa xidhnaydeen xaajadii ay xidhnaydeen ee labada hay cid uma dhaqaaqin garowshiye iyo gacal daaweyni ma dhicin reerkii wax gaaray Ciise intoo cidi kacday reerkii cid salaamu calaykum marka garowshiyana ma dhicin gacalkiina lama xiriirin marka arrinkii nabadu halkii la idinka soo xiray sidiisii buu yaalay xarigiina ciidii kama dabayman malaade qof idin soo booqday waa idin yimid laakiin ka dabaymasho rasmi ah oo awar arrin baa xirantiina taro sidaan u furfuraana xaqii reerkiini kama iman bal waa idin sheegaya labadaas mid ma dhayn marka nabadii iyo heshiiskii waa dildilaayeen idinna wax xidhnaydeen markii arrinkaasi noo muuqday Allah khayr ha siiyo waxa rag badan ayaa isxil saaray oo tallaabooyin galay marka waxay noqotay inaan nabadiina aanay sidan ku bogsanayn xarigiina aan waxba taray marka waxa khasab noqotay in beeshii kale ay wax gaareen aan mar kale yadii nabadii ka goobno iyadii haddana nabadii laga doono laakiin waxa nabad goobista lahaa diinigii wax geystay Soomaa markii xagga wax soo si kastaba ha ahaatee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa socdaalkiisa iyo kormeerka shaqo waxa uu uga dan lahaa sidii uu u nabadeyn lahaa shaqaaqada deegaankaasi ka jirta arrintaasi aanan wax isafgarad ah oo saxaafadda loo soo bandhigay aysan jirin waa Axmed Diiriye Ciiltire shabakada wararka ee Maandeeq magaalada Boorama.